Maski oo kamida dadka ugu caansan cryptocurrency-ga ayaa shirkadiisa internetku waxa ay dhawaan ka howlgalaysaa dhulka miyiga ah ee fog ee ku yaala Soomaaliya. sida dad badan ay og yihiin dawladda Soomaaliya ayaa wada hadal socday muddo ku dhow 2 sano waxa ay ugu dambeyn ku qancisay Elon Musk iyo shirkadiisa Space in ay keenaan Soomaaliya internetka loo yaqaano Starlink kaas oo ah internet ku shaqeeya nidaamka satellite-ka. dad ayaa laga yaabaa inay isweydiinayaan muxuu internetkan ugu duwan yahay internetyada kale ee shirkadaha Soomaalidu ay bixiyaan ee ka shaqeeya wadankeena. waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso muxuu internetkan ugu duwan yahay internetka kale ee ka shaqeeya Soomaaliya ee bixiyaan shirkadaha ka shaqeeya dalka. waa su'aal fiican. Starlink waxa ugu duwan yahay ayaa la leeyahay internetka ka shaqeeya wadankeena waa internet ku shaqeeya nidaamka loo yaqaan satellite-ka kaas oo ay xambaarsan yihiin dayax gacmeedyo ku socda joog hoose waxa uuna internetka geyn karaa meelaha fogfog ee dhulka miyiga ah kuwaas oo aan laga helin guud ahaanba nidaamka towerska ee internetka wadankeena uu ka shaqeeyo. sanadkan 2025 dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa internetkan la soo gaarsiiyay waxaana kamid ah dalalka Kenya, Nigeria, Malawi iyo wadamo kale oo ku yaala qaaraddan Afrika. mar walba la soco xogaha aan ku soo gudbino baraheena bulshada ee kala duwan ee Omaya Exchange waan ku mahadsantahay ee na soo raac.